هناك أناس يخافون على سمعة بلادهم. انت انغو مدحدا نahay anigoo ku hadlaaya keyga iyo kan madaxweynaha waxaan idin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo maadsantii nin dantiisa waayay ama maaragtay jago waayay ama contract waayay ama maaragtay qandaraas waayay ama maaragtay dawladda shisheeye iyo dad shisheeye ay maaragtay soo maalgeliyaan waxaas in lagu shaqeysto oo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda 1500 oo dhalinyaro ah baa halkan fadhiyay maanta qaacadan fadhiyay mid walba wuxuu jecel yahay dhulkiisa inuu wax ka noqdo dalkiisa uu wax ka noqdo dalkiisa uu tago ayuu jecel anagu aan joogno xukunka waxaan idin ballan qaadayaa inaan aqbali doonin in la cabsiyo inaan aqbali doonin dariiqa saxda ah la ka leexiyo inaan aqbali doonin in la yiraahdo nala shaqaysta hadii kale waa idin ka ridayna. وهناك حمير تبيع البلد بما فيه. dalkaas ka cadil xilkii aan ku dhiibnay waa ka soo bixaysa bad lahayn ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu ha iska tageen. waxaan soo jeedinayaa inay iscasilaan dhignaan karta horta de inuu yahay caasi waalideen madaxweynuhu waayo cidii adiga ku dhashay ama wax ka dhigtay dad si cad aad u aflagaadeynayso waa caasi waalideennimo tan kalena de wuxuu la mid yahay waa oday Soomaaliyeed wuxuu la mid yahay un oday reerkiisii ka soo tagay fadhi ku dirrada intii yimaada caruurtiisii iyo reerkiisii aflagaadeynay marka daniyadii uu sheegin jiray eedeysana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dal jacaylkii iyo eedeymihii madaxdii ka horeysay uu ku eedeyn jiray inay Etoobiyaan iyo dawlado kala wataan maanta isaga ku sifoobay soddon jira oo yiri 30 milyan leh abidkiisna wasaaraddaas maaliyadda meel ahayn oo ka shaqeeyo subax u shaqo tagay ma jirto xoolaha faraha badan oo leeyahay bal caaw hala sheer gareeyo ummadda Soomaaliyeed 30 milyan oo yiri 30 asaafkiis ka shay zakan ka baxsho yiri weyn zakan laga bixina weynaaday baxshay lacag inta gatay ana guri kuma lihi baladkan laakiin xeebti wadanka oo la wada lahaa asaaqaatay dhulkii oo dhan asaaqaatay intaas guriga ka dhisay intaas hotel leeyahay waa 30 jir waa ifan Soomaa lacagta inta ka keen wiligiisna aabiisna waxa kuma dhiman oo nin lacag lama dhalin inta ka keen waxa